ganacsatadu waa ay ka duwan tahay wax ay mas'uulka ka yihiin maxaa yeelay waa ganacsatada Soomaaliyeed Puntland kaliya ma ah Soomaaliya oo dhan iyo geeska Afrika bay mararka qaarkood dekedani ay fikiraysaa laakiin go'aanka annaga aan qaadanaynay go'aan ganacsi ma hayna go'aan dawladeed buu ahaa oo mas'uuliyadda dadkan aan ku dhisaynay waxay nagu qanciyeen inay hayaan stock ku filan waxay nagu qanciyeen in wax badan ay soo socdaan waxay nagu qanciyeen inaysan saameyn ku yeelan doonin waxa baxaya kororka sicirka iyo isdhinka waxay isdhimaan markii ay yaraadaan ay qaaliyoobaan waxa hadda soo baxaysa in badeecadii ay kor u kacayso runtii arrintaas ganacsatada waa mas'uuliyad darro iyo ballanka bax waxaan rabaa inay isku noqdaan ballantii ay qaadeen ay fuliyaan annagu ballantii waa fulinay inaanan xirin waa fulinay inay socoto waa fulinay laakiin inay intay ballantaas qaadaan haddana sicirka kordhiyaan kama aqbaleen ciddii ballantaas ku jirtay oo ku caddaato weliba shirkadaha waaweyn ah ee runtii waan la xisaabtamaynaa hadday noqdaan kuwa ku kordhinaya iyaga waxaan kaloo intaas aysan mas'uuliyaddood qaadi karin ganacsadiina laga shiray markay ka gataan oo retailerka hadday ku daraan taas waa wax u taala dawladda hadday taasi dhacdo marka guddiga oo maanta arrintaa ka shiraayay waxaan iyadana rabaa inay si sax ah hoos ugu eegaan qiimaha korodhay ee la sheegay yaa sababay waa muhiim arrintaas in la xaqiijiyo mas'uuliyaddana ciddii ay qaadato ma rabno dadkan in badeecadu ku kacdo ma rabno in laga faa'iideysto xaaladda adag ee lagu jiro sax ganacsigu suuqa xukuma oo waa xor laakiin maanta dalku xor ma ah maanta dalka cadow baa ku soo duulay coronavirus la yiraahdo covid-19 la yiraahdo dawladdu waxay u dhaqmaysaa sidii inay difaac ku jirto iyadoo dagaal ku jirto adduunka dhanna saas u dhaqmaya marka ha ogaadaan ganacsatadu siyaasadda dawladda ay wax ku dhisayso waxa weeye waa dawlad dagaal ku jirta oo dadkeeda rabta inay badbaadiso waxaan rajaynaynaa inay dadka nala badbaadiyaan iyagoo qayb ka ah bulshada runtii muhiimka u ah dawladnimada